xaflada xariga looga jareeyay dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana munaasabadan xarig jarka ka soo qayb galay madax ka socotay dawladda Sweden kuwaas oo gacan ka geystay dhismaha xaruntaasi iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sida wasiirka maaliyadda iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ugu horreyn waxa xafladda daafuray wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle isagoona sheegay in baahi weyn loo qabay dhismaha xarunta labaad ee wasaaradda maaliyadda as he explained sidoo inoo shaqay master dhismayaal kale oo fara badan ayaa inoo dhisay Sweden waa dhisay kale kulliga wax dhisi doona weelbaanka dhawaan maana bilaabi doona waxaana dhisi doona units waa dhisi doona sidoo ka qorshe marka aad iyo aad baan u faraxsanahay Soomaaliya way soo noolaanaysaa sadaqaysan xafiisyo wanaagsan baa la dhisayaa dadkii wasaaradda isku imanayaan meesha helay dib u noqonayay dhawaan waxa laga yaabaa qof walba xafiis helo qof walbana markaa lala xisaabtamo in xafiiskiisa yimaado oo soo shaqo tago dhinaca kale waxaa goobta hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta ka socotay dawladda Sweden. This is a support. This is the second minister building that Sweden has financed. The first one was the Minister of Health, and it has been completed and now in full use. To ensuring the building is self-sustainable through using green energy from solar and wind power. ugu dambeyntii waxa xafladda soo xiray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka isagoona u mahadceliyay dawladda Sweden oo gacan ka geysatay dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. wasaaradda maaliyaddu waan ku amaanayo wasiir Bayle iyo shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta kaleba waxay lafdhabar u yihiin dib u soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya oo maanta run ahaantii heer wanaagsan oo weyn aan kaga jirno aan awoodnay in aan kari karno in bil walba mushaharka shaqaaluhu ay helaan halkaan isla xisaabtanku ka yimaado marka xuquuqdii shaqaaluhu helaan xilkii iyo waajibaadkii iyo mas'uuliyadii saarnay